abtayda qaaliga waa idin salaamay meel kastoo joogtaan walaalo waxaan ilaahay darti kaaga codsanayaa inaad kilibkan meel dheer ii gaarsiiso oo ilaahay darti adigu share garayso waxaan ahay hooyo ku nool magaalada Kismaayo magaalada gudaheedan deganaa kelidii baan awoodi waayay waxa kale oo aan degi waayay guri islaameed ma degi karo waxaan wataa wiil baaskiil la wata waxa leeyahay wiilka baaskiilku ka gurigu naga jajabinaya baaskiil buu wataa waa la iga saaraya intaana bil deganaanin aniga awood dar ay hayso oo guri kiraysan la ya hadana waxa dhacday in wiilkaygii xanuunsanaa ee baaskiilada watay dartii la igu faquuqo waxaan ku noolahay magaalada Kismaayo banaankeeda aan ku noolahay waxa ilaahay dartii kaaga codsanayaa maantay waxaan u ahay marti ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogaan qof walba kilibkaygan uu soo gaaro waxaan u ahay marti waxaan kaaga codsanayaa ilaahay dartii inaad garabkayga ku soo istaagtaan lambarkayga waxa shaashada saaran qofkii raba inuu ila soo xiriiro oo xog wareysto insha Allah si fiican baan ugu xog waramayaa magaalada Kismaayo waxaan ku soo maray tacadiyo badan iyo dhibaato badan wiilkaygu ma xanuunsana oo curiyaan ma ahan waxa curiyaan ka dhigay waxa waaye wadan iyo dayac dartiis baa curiyaan ka dhigay anigu waxaan ahaa wiilkayga darti shaqaalan soo ahaa oo guriyaan ka shaqeynayay wallahi aniga xaamilo ah baan tacadiyo badan iyo dhibaato badan la soo kulmay wiilkayga xanuunadii iyo dhibaatadii ee bilaadan isoo marsiiyeen darteed wuu iga curiyaamay aabihiis waa dhintay oo waa agoon aabihii madi buu ahaa walaal ma lahayn asaguna waa madi oo kaligii buu ka tagay alxamdulillah ilaahay caruur kale aniga waa isiiyay laakiin xagga aabaha waa madi wiilkayga wuxuu san haysan gibi ahaanba wax garaba ama wax ehela ehelkii waxay nagu naceen daruufta iyo danta iyo xanuunka ay nagu naceen maanta qof gurigiisa degsanaya ma lahan waayo wiilkayga baaskiil wataa qof walba wuxuu leeyahay baaskiilkan gurigu iga jajabinayaa waxaan ilaahay kaaga codsanayaa dartiis ilaahay dartii meel loo dhaafo mala inaad kilibkaygan meel dheer gaarsiisaa wax allaaliyo wixii aad igu soo taageeri kartid ama garabkayga aad ku soo istaagi kartana aad igu soo garab istaagto ha idilsan walaal qaali maanta aan marti ku ahay adigu haday nolosha ku dhisan tahay ee carruurtaadu caafimaad qabaan ee guri qurux badan ee adiga aad leedahay degan tahay maanta anigu inta ma haysto alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay caafimaad buu siiyay laakiin maanta ummadayda Soomaaliyeed baan garab ka soo raadiyay wallahi aniga oo sariigta on jeclayn inaan soo aado meediya wajigayga quruxda badnaa waxaan isugu bahdilay waxa waaye waa duruufo iyo dan i haysaa darteed waayo wiilkayga dartiisa waan u gumoomayaa aniga maanta haduu dabka iga dansayo dhowr habeen aan qado oo dab shidan waan ku qanacsanahay laakiin wiilkayga yarka ah inaad ehel u tihiin oo garab u tihiin oo adeero u tihiin oo abtiyaal u tihiin ogaada uusan cid kale lahayn xasan insha Allah waxaan rajaynayaa wax lagu yaqaano Soomaali ummadeena Soomaaliyeed waxa lagu yaqaanaa inayna qof daruufaysan ama cillo jooga inayna cillo kaga tagin aniga waxa ii jooga gabdho meel duur cillaana waan deganahay gabdhahayga wax walba ay halis u yihiin wax walba bay halis u yihiin anigu wax walba aan halis u ahay wallahi baan ku dhaartay maanta way naga taalaa hana la soo gurmado wiilka yarka ah maxaan ku dhahay maanta waa nin aqli badan oo xirfad badan oo maxaan ku dhahay artist ah wax walba uu soo sawiraa isagoon iskuul galin iyo wax walba garanayaa haddana laakiin garab ma haysto wiilkaygu waa garab la'aan ilaahay dartii waxayna kaga codsanayaa inaad wiilkayga garab u noqotaan inaad wiilkayga gaashaan u noqotaan waxaan islaamku nahay oo diinta islaamka ilaahay noogu soo dejiyay in anaga soo gargaarno qol walba taga aniga qabiil baa la weydiiyaa waxaana la yiraahdaa naagta waa naag qurux badan naag baahan maahan waa la tuuraa ilaahay baana wax ay hoos yaal iyo xaaladda ay hoos taalo ilaahay baa og qof walba aqli u garaadana maanta wuu arkaa xaaladeyda maxaa ku dhaaytay qof allaaliyo qofkii u baahan inuu nala soo xiriiro oo xog wareysto lambarka shaashada saaran naga soo waco insha Allah ana la soo xiriiro aad iyo aad u mahadsantihiin waan rajaynayaa maanta inaad naga soo falcelin doontaan kilibkan inaad iga soo falcelin doontaan wallahi waa idin baahanahay ilaahay baan u baahanahay laakiin ilaahay ummadda uu isiyo islaamka isu dhaqano isku jiirkanahay oo adinka insha Allah waan rajaynayaa inaad ii soo jawaabi doontaan jawaab qurux badan soo siin doontaan ee dowrkaana aad iga wadi doontaan insha Allah aniga Xasan